nabad saaxiibayaal toddobaadkan barnaamijkeena baraarug show waxaynu ku tagi doonaa deegaanada Soomaaliland halkaas oo aan ku booqan doono deegaano fara badan oo ay ka mid yihiin Boorame, Burco, Berbera iyo Hargeysa. halkaas waxaan ugu sugayaa saaxiib weyn oo qaali nagu ah ayaan le toddobaadkan barnaamijkeena waa qaybtiisa labaad ama episode-kii labaad kii hore waxaad ku daawateen deegaanka Jazeera halkaas oo aan booqasho ku tagnay waxa safarkan nagala qayb qaadanaya saaxiibaha ay ka mid yihiin Sayid Cali, Cabdiraxiin, Cabdirasaaq, Cabdulqaadir, Qandac iyo rag fara badan oo dhammaan waqtigooda u soo horay inay ka soo booqtaan dalkooda iyagoo halkaasna kula kulmi doona dhalinyaro safarkan muhiimadiisu waxay tahay in deegaanka iyo dalka la barto iyadoo intii loo dalxiis lahaa wadamo kale loo dalxiiso gudaha dalka dalxiiska dalkaaga mar waa ku deegaan barasho marna waa ku damaashaad ديانا اوكي صدق اقرا وقتي وانا صوت قبلنايا وما تيجي بصوت واحد نمشي فوق هسه وصلت يقرا ان شاء الله واحد اللي ممر وصل صوت على صباح socdaalkii barbaartee bilowgiisi koowaad ka boqol xamaariyo bartamaha dalkeenne shimbir baa la leeyay bisidada hadiboodo waxay badaa dusheediyo beerasiidu jeexdaba sawbaha halka may dhigan halku beerku rabay sawlayr butaaciyo lagu beega cadaariyo geed adaari beerkii kumayoran barbaarey barya samaa ku soo dagaa belaragtideeda boholyo ku dilo boqolaal ayaamood kolba booqaad layr markay ku bidhaantee bartankeed istaagtaba ishu beegsi meel qura baaqi kuma ahaatee ballaha ma eegeen alla nabadu badana barwaaqadu ka darana dhulku bilic qurxoona Hargeysa baaxad weyna أنا نعاي ولا ولا جوي جميلة هذا لكن معاري بقى أنت مثلا ما أقول لك ما نسمع لهم قلت يو آمن واحد سيد علي مركب لا يوبحنا حقيقة عادنا عن دين سيد علي ومجاملة لكن دور نوعي راح كانوا برتك مقالة كتاعين ولما مقالة يودا من 2019 بس بدل عادي ينسى السؤال بالله أنا تنصع ما أنت عشان ما نسبح ما نسبح تنصع وأنكي ما يعني سؤال لكن كل تنصع كنا قلت لك أنكي نصع وأنا أول كذي ذا كنت واحد الواجي كان اللي كان مشروع كوري أنا واحد من ما تروح بوان والله أبطرون تان سفر كان جيسة ومركب مكانه وحي والله هاي مركز طبعات عن السجلات سجل السجلات وايد بعد ويجي يدور تاني توه الحقيقة سفر أقول ما له أصير شقاء موحد على ما لكن ما كان نرفع ساحة باشا حدنا أنت أنا أصحابي تصعد سو عبد العزيز جاي وصح سفر كان مكون غيالي يقبل هذا اليوم ساعة وحاجة مثل عربي وده مشوار أو مشوار 100 أما مشوار 1000 يبدأ بقوله يعني سفر وكم متر جرى تلاوكم بالله يعني تلاوة كواد دوال جونا جيس وال جونا أنت نود منا أخبار من لا بريدرا إلا سرعة إلا رجال إن شاء الله وحاول حدا يقول لك راهن أنت أصحابك طبعا أصحابي اللي كمان فوكسنا يا جيش الأسود حنا فرصة وذهلا إن شاء الله خرجنا إلى نقطة سفر واحد بدنا كتايب أنا كنقطة سكبرنا نقطنا تاريخ واحد مرة إن شاء الله ما شاء الله قرطوا كفر السنة ملاذا إنه مركز الدحالة إيماننا لكن جانس كانوا كرتوني سيد علي مالد هوين كل شيء اللي يجوا هاي وحنا هذينا هرجيسة ودن كنا بصوت الحين سنة فعل بيو لكن ما في ريال فيه متاعنا
magaaladan waxaa ka jooga 2 months oo new staff hotel kaliya degan America wana aadana laakiin maanta aad buu faraxsanahay tiimkii uu ku dhex jiray tiimkii Muqdisho maanta waxaan rajaynaynaa farxadii guusha insha Allah حرمكي بربر حرمكي بربر سلام باحد وينه هذا تمد بدويني هذه بنات وبريدة ذي waxaan joognaa dusha sare buurta daalo wallahi waa maalin aad wanaagsan waa maalintii labaad ee arkaabo joogno marka hore waxaan TV iyo sawir waxaan saaka arkiisay kaliya laakiin maanta marka arkay caadka naga hooseeyo tuulooyin hoosteena degan wax kale noo sameynaysa waxaan rajaynaynaa meesha nagu siiyo waa safar taariikhi ah wax oo khiyaali aan rabi jirno hadda aan sameynay waan ku faraxsanahay tiimka shaqada wada socon waxaan rajaynaynaa inaan fan qaadano assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan aan joogno waa buurta daalo waxa ku taala magaalada Ceergaal waxa dhamaan bulshooyinka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan idin leeyahay meesha dalxiiska ah aad kaliya leedihiin waa buurtan waa meeshan daalo aad ka qurux badan hadda wiilal aan asxaabnahay oo koonfur nooga yimi ayaa sidaa u dabaashanaya oo xagga hore waa meel aad iyo aad qurux badan geedahan dhirtan kaymahan hatta meel filmaad lagu matali karo lagu jili karo banoon karta wax kasta buurta daalo ka suurtoodaysaa hatta halka marigu aragtaan daalo waalka leedaad qurux badan shawi fiican ceeryaamo quraxdii oo falaadeeda soo deynaysa aad ayay qurux badan tahay macquul ma aha dadka qurbaa jooga iyo dadka meel kasta jooga waxaad leeyahay daalo kaalaya oo u soo dalxiistaga waxaan joognaa buurta daalo oo meel dheer ugu nimid Muqdisho waa arkaysaan bilicda quruxda mahadsan bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan joognaa buurta daalo on dalxiis ugu iman asxaabteeda iga timid maxaan ku lahaa Muqdisho aan gobolka Sanaag aan ku soo dhaweeyno waxa la yiraahdo welcome buurta daalo dhulka bilicsanaa waxaan ku lahaa dhulkeena nimca fadhida waa muuqaalkii ugu quruxda badnaa noloshayda aan arko iyo markii ugu horeysay buur dheerkeedu intaas leeyahay dalada ugu sareysa koro runtii farxadeeda ma haysan kartid waqti fiican baan qaadanay jawiga aad u macaan
marka aad baan ugu faraxsanahay xaqiiqatan joogitaanka siyaasadda laga dadaalada soo baxay wajdan aad baa qariya xataa magaalada inaga hooseysay ama marka joogida waa aad qurux badan runtii waxaan kula talinaynaa asxaabteena inay sanad walba at the end of the year ay vacation kooda qaataan intay wadamo kale ay geyn lahaayeen dhaqaalaha ay wadankeena geliyaan oo dalxiis halkan u imaadaan oo dhulkan qurux badan la arkaan والله الحمد لله horta waxaan buurtay dalxiiska waxaan jiblaag waan joognay inka san laag la arkeen iyo kii hoosiyay qaybta ka jaan la arkeen waxa qarisay ariyama qarisay kala dhamaan dalxiisayaashu aad ugu faraxsan yihiin jawiga wanaagsan bisharadii naftayda waxaan ku soo maray batalaalihi oo dhari ku asnaa